الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دروس تاني تصريف الأفعال وحيد بصعدان المدخل إلى علم الصرف. درسينا كواد مانتا وخلاصة كصابصا وحياليه أنهر أغسو هذلني كدبا مركي قدقل دونا إن شاء الله تعالى موضوع تصريف الأفعال. مواضيع أنهر أغسو هذلني وحاكم إذا موضوع علم الصرف. علم الصرف muxuu ka hadlayaa الكلمات التي تدخل عليها أحكام الصرف. waxaan soo sheegnay wuxuu ka hadlaa sarfigu الأسماء المعربة, laakiin waxaa laga soo reebayaa asmaada acjamiga la yiraahdo sida Ibrahim iyo Istabraq iyo Isxaaq iyo waxa lamid ah. kalimaadkaasi mucrab waa yihiin waa ma la yansarif, laakiinse cilmiga sarfiga kama hadlo, bimacnaa kalimaad la wasna ma ahan. qaybta labaad oo cilmi sarfiga ka hadlo waxa weeyaan الأفعال المتصرفة, bimacnaa ficilka sarfoobaya oo mudaaric ka imaanayo oo amar ka imaanayo oo ism faa'il ka imaanayo iyo wax lamid ah. hada mithaalkeena fiiri, nasara waa ficil mutasarrif ah, mudaaric baa ka imaanaya yansuru, unsur nasran waa masdarkii, fahuwa naasirun waa ism faa'ilkii, wa mansurun waa ism mafcuulkii. kelimada noocaas oo kale waxaa loo yaqaanaa mutasarrif. haddii aan soo khulaasayno الكلمة العربية اسم وفعل وحرف. اسمك waxaa loo qaybiyaa mucrab iyo mabni. cilmiga sarfiga wuxuu ka hadlaa mucrabka mana ka hadlo mabniga. ficilka wuxuu u qaybsamaa mutasarrif iyo jaamid. mutasarrif waa tii hadda aan soo tilmaanay, waa ficilka mudaaric ka imaanayo iyo amarka iyo wixii lamid ah. jaamidkana waxaa weeyaan mutasarrifka cagsigiisa sida laysa iyo nicma iyo waxa lamid ah. علم الصرف متصرف كهذا جامد كما هذله. أما الحرف حرف كوحوق يبسماه حرف معنى هي حرف مبنى. حرف معنى وحالة وضعه أما حروف المعاني حروف تسيد حروف الجر وكذا في على يوحي لمده. أما حروف الجزمية سيد اللم يلم يوحي لمده. كواس أمرك وحلو يقانا حروف المعاني. حرف مبنى أما حروف المباني وحروف ألف باء تاء ثاء. الحروف الأبتتية نورير هذا يعني نسبة إلى ألف باء تاء. مثلا كتب وحكك وبنتهي سد حرف الكاف والتاء والباء. حروف تاسي وحلو يقانا حروف المباني كلمة على قدسة. أما وحالي هذا حروف الهجاء. حروف تاسي نطق إذا يوحك تعلق وحلو برتها في علم التجويد. مرك خلاصة القول اسمك لابو قيب سما, ficilka laba u qaybsamaa, xarafkan laba u qaybsamaa. cilmi sarfiga wuxuu ka hadlaa kaliya mucrabka iyo mutasarrifka. sidoo kale waxa muhiim ah inta aanan guda galin mawduuca tasriif al-af'aal in aan dib isku xasuusino abwaab cilmi sarf si uu qofku u ogaado wuxuu soo bartay, meesh uu marayo iyo waxa uu dhiman. الباب الأول waxa loo yaqaan al-miizaan as-sarfi. si faahfaahsanna duruusteen hore ayaan ku soo qaadanay. مثلا وحليناه نصر فعل. ناصر وحليناه على وزن فاعل. قابل الأصول بالأصول وعبر الزائد بلفظه. أيضا فافاسنا هرنا وصعدلني. باب كلابات وتصريف الأفعال سلسلة هذا نوب بلابنيسة. تصريف الأفعال وحلقة وضع فعلك اسبدل ذا كرعية مرماد بنقن مر مضارع بالنقن مر أمر بالنقن. هذا مثال كانوا كلا نصر ينصر انصر. أما فعل مزيد سوق هذا ناصر يناصر ناصر. اسبدل هذا اسكو دعاية من حيث الصيغة يوحي لم إذا تقسيمات كانوا إيمان دونا. باب كالصدحات وتصريف الأسماء. أسماء ذا اسبدل هذا كل دعاية. مثلا أسماء ذا مرنا مشتقات بالنغضان مرنا وحين نغضان جامد سيدان أركضون إن شاء الله تعالى. أمثلة نكوات نصر إيا ناصر إيا منصور ومشتقات هو الإرادة. نصر ومصدر وحلو يقانا المشتق منه. ناصر واسم فاعل, منصور واسم مفعول, ورضاني مركو حلو يقانا المشتقات. جامد كانوا هذا مثلا عصا أو كلا مفرد ويان, عصوان مثنى ويان, عصي وجمع التكسير. الباب الرابع وأهبابك مهمسا والإبدال والإعلال. إبدالك إعلالك وحلوغة هدلا اسبدل لدى قاركوت أي كلمة كو إيمانا يا أسباب تكينيسة إن لغو عدايو. مثلا قال أوكرا
waxaa lagu dhihi doonaa asalkiisu waa qawala. isagoo marka qawala ah ayaa marka qaacida sarfi ah oo aan gadaal ka baran doono ayaa marka lagu tadbiiqinayaa, kadib wuxuu noqonayaa qaala. arrinkaasi waxaa lagu baxfiyaa fii baab alcilaal. waxaa la mid ah mardiyun, asalkeeda waa marduuyun calaa wasni mafcuulun. marka kelimada asalkeeda waa radiya, raa wa faa'u lkalima, addaadu wa caynu lkalima, ya-duna waxay ahayd laamu lkalima. markii loo binayo calaa wasni mafcuul wuxuu noqonayaa marduuy. marka wow iyo ya markay kulmaan qaacidooyin sarfiyaa jira. hadda calaa sabiili lmithaal wowdii baa waxaa loo bedelayaa ya baa loo bedelayaa, marka alibdaal baa la yidhaahdaa. kadib baa markaa qaacidooyin kalena lagu tadbiiqinayaa. marduuyun wuxuu noqonayaa mardiyun. labadan mithaal waxaan usoo qaadanay si aan u tilmaanno baab alibdaali waliclaal. isagoo faahfaahsanna waan arki doonaa insha allahu tacaala fii maa yustaqbal. intaasi marka khulaaso ku filan way tahay duruustii aan hore usoo dhigannay almadkhal ilaa cilmi sarf. duruusteena soo socota waxaan uga hadli doonaa tasriifu alafcaal, waana baabka labaad min abwaabi cilmi sarf. afcaashu waxaa loo qeybiyaa taqsiimaad kala duwan. min xayثu atajarud waziyaada, markii laga fiiriyo inuu ficilkan yahay ficil xuruuftiisa dhan asal tahay, iyo inuu wato xaraf ziyaada. markii xagga laga fiiriyo ficilka waxaa loo qeybinayaa mujarad iyo masiid. afcaasha min xayثu asiiqa, markii laga fiiriyo xagga isbedelka ku imaanaya waxaa loo qeybiyaa maadin wa mudaaricin wa amr. afcaasha min xayثu asixa walictilaal, markii laga fiiriyo asixa bimacnaa xuruuftiisoo dhan waxa weeyaan xuruuf saxiix ah, xaraf min xuruuf alcilla kuma jiro. ama min xayثu alictilaal, markii laga fiiriyo inuu xaraf ama laba xaraf min xuruuf alcilla ay ku jirto waxaa loo qeybin doonaa ficil saxiix ah oo ka maran xuruuf alcilla iyo ficil muctal ah oo xaraf min xuruuf alcilla ay ku jirto. ficilka markii laga fiiriyo min xayثu alluzuum waatacaddi waxaa loo qeybiyaa ilaa laazimin wa mutacadin. alluzuum waxaa laga wadaa ficilka faacilka keliya qaata. tacadigana waxaa laga wadaa ficilka inuu u baahdo mafcuulun bihi si macnihiisu u taam noqdo. marka ficilka laasimka faacilkiisu ku kaaftoomayaa, mutacadigana wuxuu u gudbayaa mafcuulun bihi. qaybta shanaad waxaa weeye min xayثu dikru lfaacili, markii laga fiiriyo ficilka faacilkiisa in la sheego inaan la sheegin. laba u qaybsamayaa ficil la yidhaahdo mabniyun lilmacluum, bimacnaa faacilkiisii baa la yaqaanaa oo la sheegay. hadda mathalan daraba zaydun camran, zayd wuxuu dilay camar. daraba marka waa ficilkii, zaydunna waa faacilkii oo la sheegay. marka ficilkan daraba maadaama faacilkiisa la sheegay waxaa loo yaqaanaa mabniyun lilmacluum, yacni faacilkii waa la yaqaanaa, waa macluum. cagsigiisa waxa weeyaa markii faacilka intii la xadfo la yidhaahdo duriba camrun, camar waa la dilay. ciddi dishi lama yaqaan, kaa waxaa loo yaqaanaa mabniyun lilmajhuul. khulaasatu lqowl tasriifu alafcaal qeybahan shanta ah ayaa lagu soo koobi doonaa. هذا وبالله توفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.